waxa uu isku duldhigay Rabbigii, waxa uu dukaday 3 ragco oo waajib ku ahayd, isla markaana Rabbigiisa uu isugu duldhigay. Waxa uu ku duceystay in Allah subxaanahu wa ta'aala uu ka dulqaado culeysyada saaran, waxa uuna ka soo baxay salaada. Intaasi kadib, kooxo dabley ah ayaa dilay. Qofka aan ka hadlayno waa muwaadin Deeq Cabdi Jaamac oo caawa u hooyanaya iilka kadib markii kooxo dabley oo arxan-laabayaal ah ay nafta ku dhaafiyeen gudaha magaalada Gurceel ee dowlad goboleedka Galmudug. Dableydani hubeysan oo aan la garanaynin ayaa Deeq Cabdi Jaamac dilay kadib markii uu ka soo baxay salaada Maghrib oo uu ku oogay masjidka lagu magacaabo Munawwar. Marxuumka ayaa waxa uu qayb ka ahaa ganacsatada caanka ka ah deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, haba ugu sii darnaatay gudaha magaalada Gurceel oo uu ganacsadaha ku lahaa goobo ganacsi. Waxaana Deeq Cabdi Jaamac xilliga la dilayay uu ahaa nin Rabbigii hor istaagay, isla markaana 3 ragco oo salaada oo waajib ku ahayd soo dukaday, sidoo kale soo sunaystay, Allana ka baryay inuu ka dulqaado culeysyada saaran. Kadibna waxa uu ka soo baxay masaajidkii uu salaada ku oogay ee Munawwar oo ku yaala gudaha magaalada Gurceel ee dowlad goboleedka Galmudug. Waxaana intaasi kadib risaas ooda kaga qaaday kooxo dabley oo ilaa iyo hadda heebtooda aan la garan. Kooxahaasi oo kadib markii ay dilka geysteen isaga cararay goobtii ay dilka ka geysteen. Laamaha amniga maamulka Galmudug ayaana weli ka hadlin dilka loo geystay Allah u naxariistay marxuum Deeq Cabdi Jaamac oo ka mid ahaa ganacsatada caanka ka ah gudaha magaalada Gurceel ee dowlad goboleedka Galmudug. Ilaa iyo hadda lama garanayo sababta dhabta ah ee ka dambeysa dilka marxuum Deeq Cabdi Jaamac Allah u naxariistay, kaas oo ku baxay wado wanaagsan kadib markii kooxahani dableyda ah ay dileen isaga oo soo oofiyay waajibaadkii uu Rabbigiis u abuuray, taa oo ahayd in uu Allihiisa isku duldhigo isla markaana uu caabudo. Deeq Cabdi Jaamac ayaana ka soo baxay salaada Maghrib xilliga ay dilayeen dableydani ku hubeysnaa qoryaha noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale biskooladooyinka, sida ay tilmaamayaan xogaha ka imaanaya magaalada Gurceel ee dowlad goboleedka Galmudug. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in marxuumka risaasta ay kala dhaceen qaybaha sare ee jirka. Dableydani ayaana waxa ay isaga baxsatay goobta ay dhacdadu ay ka dhacday. Welina laamaha amniga maamulka Galmudug ayaana ka hadlin arrintaasi, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ay ka dhacayeen xiisado la xiriira dagaal beeleedyo, iyadoo dilal kala duwan oo siyaabo dhowr ah kaga dhacay gudaha deegaanada maamulka Galmudug loo sababeeyay aanooyin qabiil. Waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay tusbax go'ay ay ka noqdeen dilalka deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, haba ugu sii darnaadaan magaalooyinka Gaalkacyo iyo sidoo kaleeto Gurceel. qaybo kaleeto oo ka mid ah deegaanada maamulka Galmudug oo qayb ay ka tahay gobolada Galgaduud iyo sidoo kaleeto Mudug, Xiindheere qaybo ka mid ah iyo sidoo kaleeto Qaayib iyo deegaano kaleeto oo Saaxo ay qayb ka tahay oo maanta iyaduba ay dilal kala duwan ka dhaceen. Ayaana waxa ay u horseedaysaa maamulka Galmudug hubanti la'aanta dagaal beeleedyada la xiriira hababka aanooyinka qabiil ee ka dhacaya gudaha deegaanada maamulkaasi. Daawade, haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka, like saara, sii share garay oo la wadaag saaxiibada, boggaanna follow soo dheh. Sidoo kale qaybta hoose ee commentiga inagula wadaag aragtidaada. Mahadsanid.